asxaabta ka raali ahaada maan duubin markii quraacii markaan dubayay, laakiinse muhiimaddu waxay ahayd inaan isla fahanno xashitaanka iyo isku dardarka. Sidii aan isugu soo dardarnay waad arkayseen, iyo sidii aan soo xashnay 40 daqiiqo markii dambe ka bacdina waan kala bixiyay sida sabaayadaan u kala bixiyay, daqiiqo waan ku kala bixiyay. waa kaas saliid baan ku dubay, saasuu noqday. xilliga afurada waad iska garanaysaan, mashquul meydhan weeyaan marka afurada la diyaarinayo. marka ka raali ahaada insha allahu tacaala. Sambuus channelka ugu jira waan soo geliyay. halkana waa roodhida caanaha macaan lagu shubo insha allahu tacaala. iyadana haddii aad ka heshaan waan soo gelin doonaa, isoo sheega. asxaabta aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin saad noogu reebtaan kommentiyadiina isugu jira ducada iyo dhiirigelinta. mar kale waxaan leeyay soo dhawaada asxaabta cusub, subscribe saara channelka insha allahu tacaala. waan soo gelin doonaa casharadii rabadaanka. halkan waxaa inoogu jira waa sharaab mushakal ah insha allahu tacaala, isagana waan soo gelin doonaa rabadaanta dhexdeeda. asxaabta waxyaabo badan way soo socdaan, ha moogaanina insha allahu tacaala. quraacina waxaan rajeynaya inaan isla fahanay maanta. imkana waxaan bilaabanaa waxyaabihii uu ka koobnaa quraaco iyo inaan isugu keen soo dardaro. halkan waxaa ii yaala 3 malgacadood oo ah sonkor, malgacada cuntada lagu cuno ama malgacadaas. halkan waxaa ii yaala iyadana 3 malgacadood oo caano boodho ah, malgacad fixisaha baa halkaana ii taala ama yeast saa u taqaanid, 1 xabo beeda baa isaguna halkaa ii yaala. halka waxaa igu jira milix insha allahu tacaala, in yar baan kaga darsan doonaa. halkan waxaa igu jira 3 malgacadood oo subag aan soo dhalaaliyay ah. subag aliyo subagu doona ahaado, subaga xoolaha, sixin, subaga lo-da, subag aliyo subagaad haysatid. xataa haddaan subaga rabin saliid waad ka dhigan kartaa, laakiin si anigu subaga urtiisaan iska yar jecelahay, saas awgeed baan ugu darsanayaa. 2 koob oo daqiiqa baa halkaan igu jira iyo koob biyo oo diiran. caanaha 2 midba waad samayn kartaa. caanaha waad soo qasi kartaa, biyo diiran baad kusoo qasi kartaa, iyagoo sidana waad ku darsan kartaa, kabacdina waad qasi kartaa, waad ku qasi kartaa quraaca. waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inaan isla wada fahanay. waa quraac yaroo fudud, aan wax badan oo hawlana u baahnayn. markaa imika waan isugu keen soo wada dardaraya insha allahu tacaala. markaan isugu keen soo wada dardaro soo xasho insha allahu tacaala ayaan isku soo laabanaynaa. wakaas waan isku soo wada daray wixiiba xabadii beedka ahayd, sonkortii, caanihii, wixiiba waan isku soo wada daray. kaliya imika waan xashiyaa uun. markasta biyaha diirani waxay ka dhigaan quraaca ama sabaayada ama waxaad xashinaysid wax jilicsan oo lawaxaada markiiba aada ugu fudud. markaas please waxaan igula talinayaa markasta biyaha u diiriya waxaad xashanaysaan si ay idinku noqoto wax jilicsan oo markiiba lawax fudud oo aydan ku dhibtoonin. siiba waxyaabaha daqiiqda ee burka iyo waxyaabahaas waxay ku fiican yihiin inay kaa jilcaan. waayo haddii ay kaa jilcaan daqiiq yar baad ku jilicsan kartaa, ku yar adkaysan kartaa. laakiinse haddii ay ka adkaadaan adigana garbaha ku daalaya, hadhow waxay aad doonaysa inaad samaystaana kuuma qurux badnanayo, kuuma wanaagsananayo, wax qallalan oo qalifsan buu kaa noqonaya. marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaya inaad la fahanay. ka raali ahaada codkayguna hadduu gaabiyay, waa iska rabadaan. bismillaah, anaga isku soo noqonay. waan noo soo xashay quraaceenii 15 daqiiqo ayaan xashayay, saasuu jilacay. maasha allah tabaaraka allah. hadhow marka la dubana saasuu qurux badanaya. imika marka lasoo xashay wuu qurux badan yahay. waan daboolaya insha allah. imika waxaan sugaynaa ilaa waxay ku xiran tahay saad waqti u haysatid 40 daqiiqo, saacad, 30 daqiiqo insha allah. ilaa 40 daqiiqo sugaya. imika waa galab anaga ilaa intay ka gaadhayso insha allahu tacaala. 5 waan yar sugayaa. isla socod wanaagsan. aad iyo aad baad umahadsantihiin asxaabta sida quruxda badan aad noogu xirantihiin, aad noogu reebtaan kommentiyadiina isugu jira ducada iyo dhiirigelinta. mar kale waan idinkaga mahad celinayaa.